Assalaamu calaykum. Maanta waxaan dhigan doonaa casharkii afraad ee isu qaybinta tirooyinka. Waxaan ku guda jirnay qaybtii fududeyd ee marka laba tiro la isu qaybinayo aan hadhaaga yeelanaynin. Qaybtan waxay nagu xigi doontaa qaybta laba tiro marka la isu qaybinayo hadhaaga yeelan doonta. Waxaan ugu dambaysiin doonaa isu qaybinta tirooyinka. Qaybta marka tirooyinka badan la isu qaybinayo, laba tiro oo badan la isu qaybinayo, isu qaybinta dheer loo yaqaanay ayaan kusoo gabagabayn doonaa isu qaybinta hadii markaa saddexdaa qaybood ayaynu isu qaybinta ku kala qaybinay. Marka weli habkii fududaa baynu ku guda jirnay. Tusaalayaasha haddii aynu eegno afartan tusaale ayaynu casharka ku qaadan doonaa. Tusaalaha koowaad haddaynu eegno 100 loo qaybiyey 2. marka hore radicalka baynu soo warinaynaa. tirada la qaybinayo 100ka hoostaad gashanaysaa, tan loo qaybinayo 2daana dibadda dhiganaysaa. marka tirada ugu horeysa ee la qaybinayo haddii ay ka yar tahay loo qaybiyaha, waxaad samaynaysaa labada hore isku qaadaysaa 10. marka waxaad raadinaysaa tirada marka 2 lagu dhufto 10 siiya waa 5. 5 xagga sare soo saar, labada igu soo dhufso waa 10kii, soo kala jar 0 ku hadhayna la soo daadeg. marka waxaad raadinaysaa tirada marka 2 lagu dhufto eber siiya, eber on weeye, eberkii xagga sare igu saar, labada igu soo dhufso waa eberkii on, soo kala jar waa eberun. jawaabta xagga sare ku saaran ee 50ka. talabaad haddaan eego 159 loo qaybiyey 3. waxaad samaynaysaa tirada la qaybinayo horta radicalkaad sawarnaysaa. tirada la qaybinayo 159ka hoosta gasho, tan loo qaybinayana dibadda dhiganaysaa. marka tirada ugu horeysa ee la qaybinayo haddii ka yar tahay loo qaybiyaha, waxaad labada hore isku qaadaysaa 15ka. marka tirada marka 3 lagu dhufto 15 siiya waa 5. xagga sare soo saar, igu soo dhufso 3da 15kii, soo kala go waa eber. 9ka hadhay la soo daadeg. waxaad raadinaysaa tirada marka 3 lagu dhufto 9 siiya waa 3. 3 ku soo dhufso waa 9, soo kala go waa eber. marka jawaabtu waa xagga sare ku saaran 53ka. saddexaad haddaan eego tirada 200 loo qaybiyey 4. marka hore radicalkii baad sawiranaysaa. tirada la qaybinayo 200 hoosta gasho, tan loo qaybinayana dibadda dhiganaysaa. marka tirada ugu horeeya ee la qaybinayo haddii ka yar tahay loo qaybiyaha, labada hore isku qaadayna 20ka. tirada marka 4 lagu dhufto 20 siiya waa 5. 5 xagga sare soo saar, 4 igu soo dhufso waa 20kii on, soo kala go waa eber. eber bay harsan, eberka la soo daadeg. haddaba raadi tirada marka 4 lagu dhufto eber siiya waa eber on. xagga sare igu saar eberkii, eber 4 igu soo dhufso waa eber on, soo kala jar eber ka jar waa eber. jawaabtu waa 50 xagga sare ku saaran. tusaalaheena ugu dambeeya ee afraad haddaynu eegno 240 loo qaybiyey 5. waxaynu samaynaynaa marka hore ee radicalkii baynu soo warinaynaa. tirada la qaybinayo 240ka hoosteed gelinaynaa, tan loo qaybinayo 5taana dibadaynu dhiganaynaa. marka tirada ugu horeysa ee la qaybinayo hadday ka yar tahay tan loo qaybinayo, waxaan samaynaynaa labada hore isku qaadaynaa. marka waxaad raadinaysaa tirada marka 5 lagu dhufto 24 siiya. 5 ku dhufo waa 5, 2 ku dhufo waa 10, 3 ku dhufo waa 15, 4 ku dhufo waa 20, 5 ku dhufo waa 25. marka 5 ku dhufo way ka badan tahay, 4 ku dhufo 20 baa ugu soo dhow. tira ka badan looma baahna, tirada ugu yar ee ugu soo dhow waa 4. marka 20kaas aynu ugu soo dhow 4 bay u saaranaa. 4 5 igu soo dhufso waa 20. 4 iyo 20 kala jar waa 4. 0ga ku hadhayna la soo daadeg. marka waxaad raadinaysaa tirada marka 5 lagu dhufto ina siinaya 40 waa 8. inugu saar 8. 8 5 igu soo dhufso waa 40. soo kala go haddaba 40 iyo 40 waa eber. jawaabta waa xagga sare ku saaran 48ka. maanta casharku halka ayuu nagu joogi doonaa. casharka labaad oo inagu xigi doona waa eegi doonaa insha Allah. assalaamu calaykum.